magaalada Columbus, Ohio, markii ugu horeysay maanta aadaanka salaada casri laga maqlay masjidka banaankiisa halka markii hore masjidka gudihiisa uu ku ekaa aadaanka salaada. arrinkan ayaa timid kadib markii dhalinyaro isku xil saaray suurtagalnimada in aadaanka salaada laga maqlo banaanka masaajidka iyagoo kaashanaya culimo, sanataro, sharci yaqaano isagu jira Soomaali iyo dad aan Soomaali ahayn. Masjidka Al-Raxma oo ku yaala xaafad ay Soomaalidu ku badan yihiin ayaa nasiib u yeeshay inuu noqdo masjidkii ugu horeeyay ee aadaanka salaada si furan u baahiya guud ahaan gobolka Ohio, gaar ahaan magaalada Columbus, Ohio ee dalkan Mareykanka. waa kuwan dhalinyaradii soo qabanqaabiyay xafladda daahfurka aadaanka salaada laga bilaabo maanta ka dhici doona masaajidka Al-Raxma iyo qaar ka mid ah culimada oo ka hadlaya arrinkaasi. runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa walaalkii Shaaciye insha Allah bulshada ka soo qayb galay maxalla walaalkeen Cabdi Saciid maxalla sagar aad baan ugu mahadcelinayaa barnaamij maanta aad iyo aad muhiim nooga runtii baa ka dhacay maanta masaajidkii salaadiina ka socota waa maqlaysiin aadaanka ugu horeeyay ka dhaca runtii state of Ohio waa runtii waa wax aadaan kor loo qaado waliba xaafad ay Soomaali degan yihiin boqolkiiba boqolba farxad bay noo tahay runtii badan baa aad u qiiroonay xitaa runtii dareenka ay ku kacinaysay inay aadaan maqlaan dad muddooyin 20 sano 30 sano ka badan aadaan maqlin baa maqlay markii ugu horeysay kulligeen hadda waa maqlay marka runtii aad iyo aad bay farxad noogu muujinaysaa. maanta waxa noo soo galay in laga adimo masaajidka Al-Raxma Columbus, Ohio. waa gool ay ka soo shaqeeyeen dhalinyarada sida Maahir oo ila taagan Ismaaciil Daiman Lula hodan iyo maaragtay walaalaha kale marka aad baan uga mahadnaqayaa dadka ka soo qayb galay waana mataqaana waxay ahayd good opportunity. هاتو دمان أقياد كسو قيب قشمان تحلفت دينا آد أيا أقوم هاد علنيا وانيقو أمقعيقا لول بشير أحمد كما عدير دي ملولة ما أنت وحان قبرنا aad iyo aad u muhiim aha jaaliyadeena community-ga Soomaalida oo ku nool Columbus, Ohio. waxa ka mid ah aadaan in waligeena maqlin inaan maqalno aadaan 20 sano iyo ka hor dadka qaar kood muddo 30 sano inaysan aadaan maqlin. alxamdulillah ilaah ayaa noo mahadaas leh oo noo fududeeyay maanta inaan helno waxaan u mahadcelinaynaa dadka nagala soo qayb galay oo dhan iyo dadkii nagala qayb qaatay aadaankan oo naloo ansixiyay in uu noo noqdo wax birmad ah ama sharci ah oo gobolka Ohio aysan mar walba laga aadimayo 5 jeer oo salaad haduu Ilaahay yiraahdo. aad ayay ugu mahadsan yihiin dhammaan awaawulayaasha iyo dadka ka soo qayb galeen iyo Shaaciye media iyo meediyaasha dhan oo ka imaadeen insha Allah. waanta u jeedin waa very historic moment Columbus, Ohio ka dhacday masaajidyaashii ugu horeeyay oo xaafadda la dhaho Capital Park aan ku guuleysanay aadaankii oo lagu dhawaaqo 5 salaadbo oo forever seemaantu bilaabatay oo u soconayso. alxamdulillah waan ku guuleysanay anaga iyo lawyerkeena first lawyer Columbus, Ohio ugu horeeyay ma sha Allah hawshan noo fududeeyay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كوثرة وأنا سلام يا دمان قبل كلن كان مانتي وجوه الرئيس شيخنا قاسم يا دمان أنت كلبا الحمد لله إله أيام هذا إسكاله إن مانت هل كان أسوه ذا إيماني أنا أورمنا إن كان نقولنا ويتنس أم حضور كان نقولنا إن مساجد كأولجاء الدماء مساجد كأولجاء الدماء وحن كذا مساجد كعدكي بنان كلاجة صاري وحاولنا عشان صار مساجد إن لقيت كذا لكن شرعي أهان مريكان كلام أقلا إن عدك بنان كلاجة مقلوه مرك الحمد لله مساجد كسو حال مسجد الرحمة وحكي على كابيتال بارك مش أقول بدن حفظ Soomaalida ay degan tahay marka insha Allah waxay u tahay sharaf dhamaan dadka degan iyo dhamaan Soomaalida oo dhan iyo dhamaan muslimiinta oo dhan waa ilmahooda inay tusaan meel salaada sida looga adamayo codka sida uu yahay muddan jooga Mareykan markii ugu horeysay aan maqlaayo waaye marka alxamdulillah ilaahay ayaa mahad iska leh waxaan leeyahay hambaliyo muslimiinta oo dhan waxay la mid tahay maalintii nabigu Madiina ku soo laabtay oo uu ka bilaabay salaada marka alxamdulillah rabbil caalamiin. maanta waa maalin aad iyo aad u farxad u leh maxaa yeelay waa masjidkan maanta aanu ag taagana masjidka Al-Raxma ee xaafadan Capital ku yaalo waa masjidkii ugu horeeyay ee gobolkan Ohio ee loo ogolaaday in macnaha aadaankiisa uu banaanka u baxo waxaana ka shaqeeyay khayr badan Allah siiyo oo sababkeeda lahaa rag dhalinyaro ah iyo rag culimo ah
oo arrintaasi juhdi badan iyo dadaal badan ayagaba ku bixiyey sidee arrintaani u suurtageli lahayd oo irid la arko u qaraacay markii dambena alxamdulilah lagu soo guulaystay waxaan leeyahay marka raggaas dhallinyarada oo walaalaha ah ee weliba uu ka mid yahay macnaha saaxiibkan Ismaaciil khayr badan Allah siiyay ragga kale oo dhallinyarada ahaa oo ayagana macnaha tiimkiisa ku jiray oo la shaqaynayay iyo ragga kale oo culimada ahaa oo ayaga naftooda masaajidka macnaha nidaamkiisa maamulkiisa gacanta ku hay iskaashigoodaas iyo ku suurta gashay arinta iyada ah natiijadii marka waxay noqotay in aadaankan maanta haduu dhac marka waxaan u aragnaa arin aad iyo aad u qiimo badan oo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama aadaankii la wada maqlahayo oo si guud ahaan loo maqlahayo waana shaciir min shaciir islaam kamida waa calaamadaha islaamka kamida oo maanta kor loo qaadayo la maqlahayo waxaan kale oo ayagana sidaas oo kale ah waxa masaajidka Darisla dad badan oo muslimiin ah boqolkiiba 95 waa dad muslima marka arintaasi aad iyo aad bay ugu farxeen way soo dhaweeyeen ilaa bacdigood xataa markii hadda aadaanka u dhacay aan dareemayna ilin aan ku arkayna indhahooda maadaama ay dadkan ilaa iyo 30 sano 40 sano qaar ku halkan deganayeen xataa rag dhalinyaro halkan ku dhasho 20 iyo dhowr sano jir ilaa 30 oo markii ugu horeysay aadaan ay banaan ka maqlaan hadda uu ahaa aad iyo aad bay arrinkaas ugu farxeen waana aadaanka ugu faraxsanahay alxamdulillaah rabbil caalamiin waa wax wanaagsan in maanta gobolkeena Ohio magaalada Columbus aadaanka laga dhageysto aad baan ugu faraxsanahay maasha Allah inkastoo dad badan markii hore oo fikirka aan la nimid ay ka soo horjeesteen oo dhaheen waxa ka imaan kara maartay caqabado ma suurta galayso haddana wax walba Ilaahay bay ku xiran tahay alxamdulillaah aad baan u faraxsanahay farxad kale oo aan u dabaaldegi lahaana maanta ma jirto in magaaladeena Columbus Ohio masjid kamida Masjid Ar-Rahma aadaankiisa toos ah uga baxayo wixii hadda ka dambeeyay laga bilaabo maanta dadka ku dhaqan magaalada Columbus Ohio gaar ahaan xaafadda Capital Park ayaa waxa ay nasiib u yeelanayaan in ay maalin walba 5 waqti aadaanka salaada ay dhagahooda ku maqlaan ayagoo ku sugan guryahooda. Cabdisalaan Mashaaciye, Columbus Ohio.